Wareegay oo hoostagta degmada Wareegay gobolka Shabeellada Hoose militariga Soomaaliya ayaa u ruqaansaday kowdii bishii May waxaana ay ka xoreeyeen nabadiidka Al-Shabaab. ciidamada oo watay gaadiidka gaashaaman iyo hub culus ayaa saacado badan waxay ka fakarayeen galitaanka magaaladan si waxyeelo looga dhooro shacabka loogana badbaadiyo argagixisada. waxaa ku yaala magaaladan oo badbaadin u baahnaa ka hor inta ciidanka aynu galin dhulbeereed baaxad leh waa kheyraad ay khawaarijta Al-Shabaab ka qariyeen ummadeena. ciidanka marka ay gudaha u galeen waxa ay ka dhisteen fariisano ama difaacyo iyaga oo wehel u noqonaya dadka deegaanka. waxaa howlahaasi dhinac socday howlgallo tilmaaman oo lagu baarayay meelaha ay nabadiidka ku dhumaalaysanayeen. halkan kama dhicin dagaal toos ah oo Al-Shabaab ay kala hor yimaadeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxayna ka carareen Wareegay. Generaal Odawa Yuusuf Raagi ayaa tagay dhulka ay Al-Shabaab ka carareen ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay qabsadeen waxaana saraakiisha hogaaminaysa howlgalka uu u sheegay in laga sugayo in si dhaqso leh ay ku gaaraan deegaanada Janaale iyo dhul kale oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. cabdiraxmaan sheekh cumar jeenin qaar oo ah sargaalkii hogaaminaya howlgalka Wareegay lagu qabtay waxa uu kula dardaarmay ciidanka uu watay in tallaab walba ay hore u qaadaan ay ku ilaaliyaan hantida iyo shacabka noloshooda. waxaan shacabka Soomaaliyeed ugu bishaaraynayaa inaan kowdii bisha shanaad ee 2019 la wareegnay deegaanka Wareegay ee hoostaga degmada Wareegay gobolka Shabeellada Hoose taasoo aanu la wareegnay saacada markay 12 subaxnimo. howlgal aan qorshaysan ayaan soo qaadnay muddo dheerna la qorsheynayay haddana aan ku sii wajahanahay deegaamada Wareegay Mubaarak iyo Janaale taasoo ciidamadayada ku sii durki doonaan waqtiyada ugu soo horeeya haddii Allah uu wada ogolaado aan tagi doono shacabkana laga xoreyn doono cadawga baahida la daalaa dhacaya iyo jahliga iyo faqriga dhammaan bulshada Soomaaliyeed Ramadaan Kariim. bishii hore ayaa sidan oo kale Al-Shabaab looga saaray Sabiid iyo Caanoole oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose oo hadda ay ku soo laabatay nolosha asaasiga ah. gobolka Shabeellada Hoose haddii Al-Shabaab ay waayaan meelaha ay ku dhumaalaysanayaan waxay ka dhigan tahay in badankeed Soomaaliya looga adkaaday.